ayuu soo socdaa waa xarfaan waa kaamirada qarsoon hooyada ma dhaafayo ayaydee uu dhacayaa gabadhan siduu u dardaraya ila daawo yaan lagaaga sheekaynin muuqaalkan ka qayb qaado soo qabashadiisa waa midkan soo socda si cajiib ayuu gabadha u dhacayaa dhammaantiinba muuqaalka leegta ku qabta siina sheer gareeya kana qayb qaata soo qabashada ninkan aadka u dhagarta badan khiyaanada la yaab kalena samayn doona maanteen umuuraha leenahay ilaahay ha inoo sahlo ninkan hadda soo socda ee aad u jeedaan waa nin aad u dhagar badan wuxuu soo gelayaa goobtan ganacsiga waa Soomaali ka qayb qaado soo qabashadiisa jaranjarada ayuu soo koray midda kale ayuu korayaa waa nin aad iyo aad xariif u ah cid uu dhaafaya ma jirto dad badan oo u badan hooyooyin gabdho doqooshin ayuu qaabkan u dardarayaa waa cajiib gabadhan ayuu u imaan doonaa wiil kala taagan hadda ayuu soo galay waa kaa soo galay gabadha ayuu soo ag istaagay meelaha ayuu iska fiirinayaa hadda waa xariif saacad khatar ayuu wataa gabadha ayuu wax weydiinayaa wuxuu leeyahay iisoo qabo halkan waa hal meel lagu gado dahabka waxyaabaha laisku carfiyo qaaliga ah Dubai laga keenay ayaa lagu iibiyaa mehradan ama goobtan ganacsiga ah waa la tusay intus buu yiri wuxuu yiri mid kale soo qabayo mid kale ayuu u diri doonaa bal eeg wuxuu sarfina wuxuu iska dhigaa nin wax iibsanaya wuxuu samayn doona adiga ayaa la yaabi doona hadda kaamirooyinka sidan ayay ku fiican yihiin goobaha ganacsiga meel walba kaamirooyinka wax basaasa ee qarsoon ha lagu xirto inta sancaadka ayaa soo batay tuugada qatarta ayaa soo badatay waa cajiib mid baa loo keenay mid kale haddana uu u dirayaa gabadha ayuu mid kale u diray gabadha waa warmoog waa masaakiin alla masaakiin sana waa warmoog mid kale soo qabanaysa waxay isleedahay businesska maanta aad buu u kala socdaa meelaha kale ayuu eegayaa hadda duuga waxaa lagu yaqaan meelaha ayuu war ninkaan soo qabo ka qayb qaado sii sheer garay soo qabashadiisa ka qayb qaado ummad badan ayuu qaabkan u dhacay gudaha Soomaaliya waa nin aad u yaab badan asoo Hargeysa jooga maalmo kadib garowaad ku arkaysaa wuu ka soo tagayaa Kismaayo Baydhabo Xamar meel u dhaafay ma jirto mid kale soo qabo midkii labaad ayaa loo soo qabto uu leeyahay maya midka isku dar xisaabaadka iyo bal waxa iska wado mid saddexaad ii keen waa nin la yaab leh oo cajiib ah meel walba Soomaaliya ka gabadha waa taas gabadha midkii saddexaad ay u keentay wuxuu leeyahay xisaabaadka isku ma $700 oo haddaan ku diraya bal ninkan sidoo cajiibka u yahay xariifka u yahay war ninkan bulshooy ninkan soo qabta hala soo sheega meeshii lagu arko wiilka kale waa lu tijaabinaya wiilkan iska boojeenaya mid kale u sii diraya kii saddexaad kii afraad kii shanaad ayaa loo keenaya waa nin musiiba ku aragta baa la dhihi jiray war ninkan hala soo qabto si fiican u eeg wejigiisa haddaad qof ka shakisan tahay commentiga ugu wac waa nin xariif ah waa xariif weeyaan aan ka qayb qaadana soo qabashada ninkan xaalufiyey Kismaayo Muqdisho Boosaaso Hargeysa Burco Garowe Baydhabo Marko meel allaala meel u dhaafay ma jirto waa dhulka al-shabaab kaliya ka baqaa wuxuu isleeyahay gacanta iyo lugta si isdhaaf ah yaan lagu jarin meelaha kale ayuu meereysanaya waa geed xariif ah oo qatar ah haddana mid kale u diray waa kii lixaad ayuu u diray in loo soo qabto wax buu aruursanayaa waa geed xariif ah mar buu gacanta saan u soo taagi doonaa si hoos kale wax kale uu la soo baxo waa ninkan kale iska ilaalinaya telefoonku isku boojeenaya waa aad buu soo libistay wax duruufa kama muuqato gabadha waxay isleedahay alla ilahe ninkan waa nin diyaasbara dibadaha ka yimid oo warkuwa dibadaha ka yimid naftirkooda markay soo wareeraan ayaga wax dardara war iska ilaaliya gabdhooy hooyooyinoy war iska ilaaliya noocan oo kale waa xarfaan wuxuu leeyahay mid kale noocaas ma yaalaa buquur anda luqado buu isku dardarayaa mid kale meelahan kale aan kasoo fiirsada haddii kale afartan bismaan qaataa macnaha dadkan la jooga gabadha inuu diidaya wiilka shaatiga cad wata wax gadanayay uu ka mashquuliyey ninkan kale waa isheeg waa iska sii jeedaa dadkan uu diidan yahay wuxuu rabaa gabadha keligeed inuu hal mar jaanis ku helo rabaa muxuu samayn doonaa markaas tolow muxuu samayn doonaa markaas wax la yaab leh uu samayn doonaa gabadha uu sii sheekeynaya ninkan xawaha tuun galay
wuxuu yiri maanta wax baa gadanaysaa maxay idniyo bal intaano idin inta u wadaa inta horna shaqada ma hay meesha ka tag buu yiri gabadha waxa tiri dhaaf ninka waxa naga gatay ilaahay baa noo soo diray ka tag bay tiri gabadha ka tag ilaahay baa noo soo diray irsaaqada naga hor istaagine dhaaf wiilkaas kalena halkaas ku mashquulsan yahay shaatiga jaalaha wata kambaniga u shaqeeya asigana laakiin gabadha waxbay firfiirinaysaa computerka xisaabaadka isku dardaraysaa asigi mobile buu haystaa wiilkan intuu ka baxo sugaya wiilkan mar hadduu baxo meeshan waxbaa ka dhici doono waa laga yaabaa in hooyada ayayda walaasha adiga naftirkaaga idaawanaya gabariyay ama wiilyow in qaabkan lagu dardaray iska ilaali qaabkan waa qaab khatar ah waxba ma kala ogid waa maqan tahay maskaxdaada ma joogto mid kale u soo qabatay mid kale hadana u keentay wixii oo dhan isku dardarsanaya meesha cillay naqatay hadda weeyaan jaaniska meesha waxay naqatay meel faraaqa dhinacyada saan buu leeyahay musiiba ku aragt mobile ku soo qabsanaya mar saan u leeyahay war waa nin alle ilahe aan qaabku wax loo dardaro magaalada qaabkan ugu nool oo qaabkan u xariiftama aska qaata cadarkiisa barfuunada ha qaato dahabka ha dardaro arin la yaab leh uu sameynaya arin la yaab leh oo aad la yaabi doontid ayuu sameynaya gabadha waxay leedahay xisaabaadka isku dardartay waxay tiri waa intaas lacagtaada uu fikiraya xoogaa waxay leedahay intaan oo imisa waxaas ma iga dhintid ma iga dhaaftid xoogaa wax iga dhim xoogaa macnaha nin wax iibsanayo iska dhigaya oo wax wuxuu leeyahay meelahan kale waa idinka raqaysan tahay idinka ma waxaad gadaysaan wiishkan la soo raacayo iyo waxaan maad gadaysaan maxaad gadaysaan buu leeyahay waxaad gadaysaan aniga ma fahmin maad naga dhaaftid markaasuu waxyaalaha kaluu gabadha sii weydiinayaa waa gaad aad u yaab badan weeyaan ninkan waa musiibo weeyaan xisaabaadkay gabadha ayadan iskugu dardartay way u sheegtay sheeko kale ayuu u galay oo uu u sheekeynayaa sheeko u wadaa gabadha ayuu la sheekeysanayaa wuu u sheekeynayaa gabadha kama qasno markaasuu leeyahay gacantuu hoos margelinaya wuu ka soo noqonaya waa nin nooc kale ah gacantuu meel bulaadaya abuu fiiriyey wuxuu ka waayay gabadha bacdan igu rid katan ku rid bacda macnaha waxaa ku jira islaahay marka hore ku rid xisaabaadka risiidkay usoo bixisay wixii bay usoo bixisay mobilka lacag buu u diray wuxuu yidhi waa inaad baaqigayga isiisaa baaqigayga waa inaad isiisaa baaqigayga oo baaqi meesha ma yaalba oo lacag feeg buu u diray oo been ah lacag baaqina wuu ka qaatay bashqad beenuu u diray war soomaaliyey ninkan oo kale iska ilaaliya la soo qabto meeshii lagu arka fadlan sii shargaray la wadaag saaxiibadaada si ninkan loo soo qabto bashqad been ayuu gabadha u diray hawada ayuu u fiiriyey